kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka Hiil Walaal oo ah barnaamij aanu kaga hadalno wararka ku saabsan waxqabadka howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM. qodobada barnaamijkeena ugu doorka roona waxaa ka mid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo Muqdisho ka daahfuray xarun ka shaqeynaysa isku duwidda howlgallada wadajirka ah. AMISOM oo u soo gabagabaysay booliska dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya tababar la xiriira xuquuqda aadanaha iyo ka hortagga tacadiyada ka dhanka ah haweenka. taliyaha ciidamada Uganda oo booqasho ku yimid Soomaaliya si uu u qiimeeyo xaaladda ciidamada Uganda ee ku sugan Soomaaliya. hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa shaacisay in caabuqa coronavirus oo sidoo kalena loo yaqaano COVID-19 uu yahay mid faafa. si aad gacan uga geysato ka hortagga cudurka COVID-19 oo ah virus si ba'an u haleela neefmareenka, si joogto ah u qaad tallaabooyinkan. gacmahaaga si joogto ah ugu dhaq biyo iyo saabuun ugu yaraan muddo 20 ilbiriqsi ah. marka aad hindhisayso amaba aad qufacayso, ku dabool afkaaga xusulkaaga oo laaban amaba isticmaal tiish, kadibna ku rid weelka qashinka oo daboolan. gacmahana iska dhaq. ha taabanin indhahaaga, sankaaga iyo afkaaga. si joogto ah u nadiifi oogooyinka inta badan la taabto adigoo adeegsanaya fayras dile. iska ilaali taabashada dadka jiran. joog gurigaaga haddii aad xanuunsan tahay. haddii aad isku aragto qufac, qandho amaba neef qabasho, fadlan si dhaqso ah u gaar goob caafimaad. haddii aad u baahato macluumaad dheeri ah oo ku saabsan coronavirus, fadlan la xiriir rugta caafimaad ee kugu dhow. ka feejignow coronavirus. howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa Muqdisho ka daahfuray xarunta isku duwidda howlgallada wadajirka ah si loo xoojiyo dadaalada socda ee lagu wiiqayo Al-Shabaab laguna xasilinayo Soomaaliya. xaruntan oo laga hirgeliyay taliska qaybta koowaad ee AMISOM ayaa si rasmi ah loogu daahfuray xaflad ay hogaaminayeen taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odawa Yusuf Rage iyo taliye ku-xigeenka ciidamada AMISOM u qaabilsan howlgallada iyo qorshayaasha sarreeyagaas William Kitsaw Shume oo ay si wadajir u maamulayaan saraakiisha ciidamada AMISOM iyo kuwa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa kor u qaadi doonta qorsheynta iyo agaasinka howlgallada military ee ka dhanka ah kooxaha nabadiidka ah. isagoo ka hadlayay xafladda daahfurka ayaa General Odawa waxa uu markale ku celiyay ballanqaadka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, wuxuuna carabka ku adkeeyay muhiimadda wada shaqeynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo AMISOM ee maamulista xarumaha laga hirgeliyay dhammaanba goobaha AMISOM ay mas'uulka ka tahay. waxay ku xiran tahay dabcan rabitaanada talisyada inay mideysnaadaan, soona gaaraan sectoriskuna ay u sii gudbiyaan si hawshaas ay u noqoto mid mideysan oo socota waqtigeena noogu fusho. runtii waxaan dhihi karnaa waa la soo daahnay, laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala anagoo ka faa'iideysanayna waqtigii dheeray ee aan soo wada shaqaynaynay iyo waxyaabihii aan ka soo barannay ee casharka noo ahaa in tan ay noo fududay doonto waxaan hor yaalla inaan si dhab u wajahno. taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu ku baaqay in la xoojiyo wada shaqeynta iyo isku duwidda howlaha u dhaxeeya saraakiisha AMISOM iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya si ay xaruntan uga wada faa'iideystaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM. General Odawa ayaa sheegay in AMISOM iyo ciidamada xoogga dalka ay sameysteen xiriir wanaagsan oo wada shaqeyneed sanadihii la soo dhaafay, isagoo xusay in khibradaha noocan oo kale ah ee ay wadaagaan labada ciidan ay u saamaxayso inay si wanaagsan uga faa'iideystaan xaruntani. General Odawa ayaa salaan ka qaatay qaar ka mid ah ciidamada AMISOM isagoo markii dambena ka qayb galay kulan ku saabsan amniga oo ay albaabadu u xirnaayeen. sarreeyagaas William Kitsaw Shume taliye ku-xigeenka ciidamada AMISOM u qaabilsan howlgallada ayaa mar kale ku celiyay muhiimadda xaruntani iyo sida ay u tahay guul weyn oo horseedi karta in la gaaro yoolka la wada higsanayo oo ah in dalka Soomaaliya oo dhan laga sameeyo xarumo si buuxda u shaqeeya. This event marks a milestone in our endeavor to fully have all the jokes around the sectors functioning and operating. I am happy to note that the jokes in all other sectors are also already established
we will be jointly planning, coordinating, and synchronizing current and future operations together. And therefore, we will be able to optimize the utilization of combat support and combat service support together as we plan for our operations. Sareegaas Don Nabasa, taliyaha sektarka koowaad ee ciidamada AMISOM, ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in si wada jir ah loo qorsheeyo hawlgallada, isagoo xusay in hirgelinta xaruntani iyo dhowr kale oo dalka Soomaaliya laga hirgelinayo ay gacan ka geysan doonaan sidii wax looga qaban lahaa qaar ka mid ah caqabadaha ay la kulmaan labada ciidan. For effective conduct of any operations, planning is the most critical. Therefore, I want to take this opportunity to thank the SNA leadership and AMISOM leadership for this very wonderful initiative of establishing the joint operations coordination cells in all the sectors. This will definitely bridge the gap that has been existing in the area of joint planning. maadaama xarumaha isku duwidda hawlgallada wadajirka ah ay ka kooban yihiin unugyo kala duwan oo ka kala socda maamulka, sirdoonka, hawlgallada, saadka, isgaarsiinta iyo isku duwidda militariga ee rayidka, ayaa waxay xarumahani awood u siin doonaan AMISOM iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya inay helaan faham guud oo cad oo ku saabsan xaaladaha halista ee jira si kor loogu qaado waxtarka hawlgallada iyo wada shaqaynta. booliska dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa dhammaystiray koorso tababaridda tababarayaasha ahayd oo socotay 12 maalmood si kor loogu qaado aqoontooda sharciga caalamiga ah ee xuquuqda insaanka iyo ka ilaalinta haweenka iyo gabdhaha rabshadaha galmada jinsiga ku salaysan. 12 sarkaal oo boolis ah oo laga soo kala xulay saldhigyada booliska dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka qayb galay tababarka oo ay fulisay qaybta booliska hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM, kaasoo lagu soo gabagabeeyay magaalada Baydhabo oo ah caasimadda ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. The 12 days training was necessary at least to make the Southwest State Police officers have the idea and the knowledge on how to handle these cases, because these are daily occurrence. They occur on daily basis, and why it is necessary is for them to show professionalism while discharging their duties. They should be able to know how to handle SGB cases. They should be able to know how to treat women and children. They should be able to know how to relate with the public in order not to breach their fundamental rights. intii uu socday tababarku, saraakiisha boolisku waxay qaateen mowduucyo muhiim ah oo ay ku jiraan xuquuqda haweenka iyo carruurta iyo guud ahaanba ilaalinta xuquuqda aadanaha. sarkaalka booliska AMISOM u qaabilsan jinsiga ee magaalada Baydhabo, kormeere booliska Trila Nagosi, ayaa sharaxday in tababarka loogu talagalay in lagu dhiso awoodda booliska gobolka si looga hortago xadgudubyada galmada ee jinsiga ku salaysan ee ka dhaca bulshada dhexdeeda. When I look at the zeal the students have, I am contented that they are going to pass on this information very well to other police officers, which police officers will in turn pass on the information to the public, and we shall be able to use the public to fight against SGBV, to fight for the rights of the children, and as well to fight for human rights of everybody. waxaa la filayaa in saraakiisha boolisku ay awood u yeelan doonaan inay la wadaagaan isla markaana ay ku tababaraan saaxiibadooda ku sugan saldhigyada booliska ee kala duwan aqoonta iyo xirfadaha ay ku soo barteen tababarkani, gaar ahaan kuwa ku aadan ilaalinta xuquuqda haweenka iyo gabdhaha marka ay saraakiisha boolisku gudanayaan waajibaadkooda. Maxamed Xasan Mukhtaar oo ka mid ah dadkii ka qayb galay tababarka ayaa sheegay in tababarkani uu faa'iido badan ka kororsaday isla markaana uu isticmaali doono waxa uu halkaa ka bartay marka uu gudanayo waajibaadkiisa. runtii waxay noo ahayd koorso muhiim ah, waxayna ku saabsanayd xadgudubka xuquuqda aadanaha. waxaa ka mid ahaa casharada nala siiyey sida haddii kiisasku dhacaan loo baari lahaa, looga dabategi lahaa yaa ka mid ahayd. waxaa ka mid ahayd sida looga hortegi lahaa oo lagala kaashanahayo wacyigelinteeda bulshada lagala kaashanahayo oo kiisaskaas ama looga hortegi lahaa oo aysan uba dhicin ama loo yarayn lahaa. waxaana la baray xuquuqda xadgudubka haweenka ka dhanka ah, xadgudubka carruurta ka dhanka ah. waxaana la baray sida qaabka wax loo gudbiyo haddii aad qofka wax la baro oo maartay inuu dad kale sii gaarsiiyo oo sii baro, sii report gareeyo oo sii supply gareeyo yaana la baray. waxaana la baray
يعني runtii koorso muhiim u ah ciidanka booliska ee halkan casharada ka qaatay ayna si wanaagsan u fahmeen team aad u wanaagsan ay maartay ku soo hagaageen oo macallimiin aad u wanaagsan howlgalka nabad ilaalinta ee AMISOM ayaa abuuray jawi habboon si loogu hoggaansamo ilaalinta xuquuqda aadanaha dadka Soomaaliyeed waxaana si weyn xoogga loo saarayaa ilaalinta iyo kor u qaadista waxbarashada aasaasiga ah sida ku cad shuruucda caalamiga ah ee bini'aadanimada howlgallada AMISOM iyo dawladda Soomaaliya oo meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ka xoreeyay al-shabaab ayaa waxay u gogol xaareen kor u qaadista waxbarashada iyo ilaalinta xuquuqda dadka rayidka ah AMISOM ayaa dawladda Soomaaliya gacan ka siinaysa ilaalinta xuquuqda carruurta iyo dadka nugul kadib sanado badan oo colaad ay ka jireen Soomaaliya kuwaas oo dhibaato u geystay carruurta iyo haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan dhanka xuquuqda aadanaha iyadoo dawladda Soomaaliya ay bilowday inay ka shaqeyso sidii loo horumarin lahaa xuquuqda aadanaha dadka Soomaaliyeed iyadoo hoosta laga xariiqayo muhiimadda ay leedahay in dhammaan carruurta Soomaaliyeed ay helaan waxbarashada ay u baahan yihiin howlgalka nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM ayaa kormeer ku saabsan balaarinta beeraha ugu tagay ururka haweenka ee magaalada Dobley ee dawlad goboleedka Jubbaland si kor loogu qaado isla markaana ay ula wadaagaan hababka ugu wanaagsan ee beerashada iyadoo ujeedku ahaa awoodsiinta haweenka booqashada ayaa waxaa sameeyay ciidamada AMISOM ee ku sugan magaalada Dobley taasi oo qayb ka ahayd hindisaha iskaashiga madaniga haweenka ayaa la tusay hababka ugu wanaagsan oo guryahooda ay uga samaysan karaan beera ay qudaar ka soo saaraan iyo sidoo kale qaababka ugu wanaagsan ee loo xanaaneeyo geedaha maadaama ay muhiim u yihiin deegaanka waxaa sidoo kale la tusay qaababka ugu wanaagsan ee xanaaneynta digaaga iyo horumarinta wax soo saarka dhanka digaaga si dhaqaalaha kor loogu qaado gabagabadii booqashada ayaa waxaa haweenka lagu dhiirigeliyay inay guryahooda ka samaystaan beero si ay kor ugu qaadaan dakhligooda sidoo kale waxaa haweenka lagu dhiirigeliyay inay adeegsadaan qaababka kala duwan ee waraabka kuwaasi oo beeqaamiya biyaha si wax looga qabto yaraanta dhanka biyaha booqashadani ayaa waxay qayb ka tahay dadaalada dawladda Soomaaliya AMISOM ay ku doonayaan awoodsiinta haweenka si kor loogu qaado ka qaybgalkooda dhinaca horumarinta bulshada iyo hogaaminta taliyaha ciidamada lugta ee Uganda sareeyo guud Muhoosi Kainerugaba ayaa booqday ciidamada Uganda ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM si uu ugu kuurgalo xaaladooda wuxuuna bogaadiyay waxyaabaha ay ku soo biiriyeen taageerada nabadda Soomaaliya sareeyo guud Kainerugaba ayaa intuu ku sugnaa Muqdisho waxa uu la falgalay ciidamada Uganda ee lugta ee howlgallada ka dhanka al-shabaab ka wada Soomaaliya. The purpose of my visit is to thank the troops for the great work they are doing, is to get and to deliver to them the thanks of the entire army, UPDF, and the entire people of Uganda for the great work they are doing in Somalia. Number two, it is to talk to them and get a feel for the problems and challenges that they are facing. A commander is not one that sits in the office. A commander is somebody who goes to the field and understands what his soldiers are going through in the field. So that's why I came here. sareeyo guud Kainerugaba ayaa sidoo kale booqasho ugu tagay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Mudane Maxamed Xuseen Roble waxaana sidoo kale la kulmay hoggaanka ciidamada AMISOM isagoo booqday saldhigyada ay ka howlgalayaan ciidamada AMISOM ee ku yaala furimaha isla markii uu soo gaaray Soomaaliya taliyuhu wuxuu salaan sharafeed ka gudoomay ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Uganda isagoo markii dambena kulan ay albaabadu u xiran yihiin la qaatay saraakiisha militariga Uganda oo ay ka mid ahaayeen taliyaha ciidamada AMISOM sareeyo guuto Don William Nabasa iyo Major General Luki Joseph Kidega oo ah la taliyaha difaaca ee Uganda u qaabilsan Soomaaliya sareeyo guud Kainerugaba ayaa waxa uu booqday ciidamada Uganda ee ku sugan Carbiska Ceel Jaalle Baraawo iyo xarunta howlgalka hore ee Belidogle isagoo ciidamada ku booriyay inay ilaaliyaan anshaxa xirfadda isla markaana xiriir wanaagsan ay la yeeshaan bulshada maxalliga ah maadaama ay gudanayaan waajibaadkooda nabad ilaalinta iyo horumarinta howlgalka Mkumbuke ati muko ambassadors wa Uganda hapa.
msifanye kitu kibaya chochote ambao kinaweza chikaleta jina mbaya kwa nchi yetu. Naomba mdumishe nidhamu, ikuwe hali ya juu sana. Msiwafanyie jambo mbaya yoyote. Hapo mtakuwa mnavunja sheria zetu za jeshi na kazi yenu kama wabalozi. General Nabasa ayaa taliyaha ciidamada lugta Uganda uga mahad celiyay booqashadiisa isagoo sheegay intaasi ay kor u qaadi doonto niyadda ciidamada sidoo kalena ay xaqiijin doonto xiriirka wada shaqeyneed ee wanaagsan ee ka dhaxeeya ciidamada amniga Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM. I want to take this opportunity to welcome you, sir, in the mission area. It's a honor for us to visit and find time to talk to your troops in the mission area. It's very encouraging, it's morale boosting, and will make our work very easy. After you talking to us, I'm sure we shall be more re-energized to undertake any mission, regardless of whatever it takes. Dowladda Uganda ayaa ahayd dowladdii ugu horeysay ee ciidamo keenta Soomaaliya sanadkii 2007 taasi oo gogol xaar u noqotay in dowlado kale ay ku soo biiraan waxayna door muhiim ah ka qaateen ciidamada Uganda in al-shabaab lagu qasbo inay Muqdisho ka baxaan sanadkii 2011 taasi oo sidoo kalena horseeday inay nabadi ka dhacdo qaybo fara badan oo ka mid ah Soomaaliya. Dhageystayaal daawadayaal guud ahaan barnaamijkan Hiil Walaal inta ayuu inoogu egyahay intaanu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo. hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa shaacisay in caabuqa coronavirus oo sidoo kalena loo yaqaano COVID-19 uu yahay mid faafa. si aad gacan uga geysato ka hortagga cudurka COVID-19 oo ah virus si ba'an u haleela neefmareenka, si joogto ah u qaad tallaabooyinkan. gacmahaaga si joogto ah ugu dhaq biyo iyo saabuun ugu yaraan muddo 20 ilbiriqsi ah. marka aad hindhisayso amaba aad qufacayso, ku dabool afkaaga xusulkaaga oo laaban amaba isticmaal tiish kadibna ku rid weelka qashinka oo daboolan. gacmahana iska dhaq. ha taabanin indhahaaga, sankaaga iyo afkaaga. si joogto ah u nadiifi oogooyinka inta badan la taabto adigoo adeegsanaya fayras dile. iska ilaali taabashada dadka jiran. joog gurigaaga haddii aad xanuunsan tahay. haddii aad isku aragto qufac, qandho amaba neef qabasho, fadlan si dhaqso ah u gaar goob caafimaad. haddii aad u baahato macluumaad dheeri ah oo ku saabsan coronavirus, fadlan la xiriir rugta caafimaad ee kuugu dhow. ka feejignow coronavirus.